السلام عليكم ورحمة الله. waxaan idin soo gudbinaynaa qisadii basaasnimo ee ugu khatarsaneyd dunida. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad kanaalka ogaalsan soo booqato, fadlan subscribe saar, lana wadaag walaalaha kale. gaashaanle sare Oleg Antonovich Kordovsky wuxuu ku dhashay Moscow sanadkii 1938. wuxuu ahaa sarkaalka ugu khibradda iyo aqoonta badan ee sirdoonkii Midowgii Soviet. wuxuu ahaa basaaskii ay Midowgii Sovietku ku dhaartaan oo meelaha khatarta ah u diri jireen. wuxuu ka soo shaqeeyay wadamo dhaca waqooyiga Yurub ee la isku yiraahdo Scandinavia. wuxuu sidoo kale ahaa Mr. Oleg wakiilkii ugu weynaa ee KGB ee Ingiriiska u qaabilsanaa. marka uu jirsaday da'da 46 sano ayaa loo dalacsiiyay inuu noqdo madaxa sirdoonka Midowgii Soviet ee Ingiriiska. waxayna ku rajo weynayeen Sovietku in mudan Oleg marka uu da'da kontomeeyo jirsado loo diyaariyo in lagu wareejiyo hay'adda sirdoonka Midowgii Soviet ee KGB. sanadkii 1985 KGB waxay ogaatay runta ku saabsan sargaalkii ay u xil saaratay una xulatay inuu ka soo xog warmo London. waxayna ku amartay inuu dib ugu soo laabto Moscow si su'aalo loo weydiiyo. ka hor inta uu soo laaban Oleg sanadkii 1983 wuxuu Ingiriiska siiyay macluumaad uu ka helay Moscow, isagoo uga digaya Mareykanka iyo NATO inay ka fikiraan kana feejignaadaan weerar nuclear ah oo ka imaan kara dhanka Midowgii Soviet. wuxuu sii raaciyay Oleg inay awood u leeyihiin Sovietku inay soo ridaan kantaalo muddo ku siman 7 ilaa 10 maalmood gudahood ah haddii go'aanka madambeysa ay qaataan. Oleg kama uusan hagran jirin u gudbinta sirdoonkii Ingiriiska macluumaadkii uu ka helo Moscow, tallaabooyinka ay qaadayaan iyo haddii ay dhacdo xaalad xun. Kordovsky waxaa lagu amray inuu Moscow soo galo. arrinkaana waxaa walaac ka muujiyay MI6 oo Mr. Oleg uga qiimo badnaa wax waliba. saraakiisha MI6 waxay kula taliyeen inuu ka goosto Midowgii Soviet kana baaqsado aadista Moscow, iyagana ay damaanad qaadayaan nabadgelyadiisa. MI6 waxay shaki ka qabtay in Moscow ogaatay inuu Oleg la shaqeeyo sirdoonka Ingiriiska. fikir dheer kadib, Mr. Oleg Kordovsky wuxuu go'aansaday inuu Moscow tago kana boodo talada MI6. waxaa soo caga dhigatay diyaaradiisii day Oleg, isagoo ka dhex muuqanayay dadkii hareerihiisa socda maadaama uu ahaa nin dheer oo jirkiisana dhisan yahay. Oleg waxaa la tababaray inuu dareemo khataraha inta aysan dhicin ka hor. isagoo dhex socda garoonka Moscow ayuu dareemay shaki xooggan, waxaana meel walba uga muuqda calaamadaha khatarta ah. sargaalka baasaboorka Oleg hubinaya waxa uu qaatay waqti badan inuu baasaboorka hubiyo, hase yeeshee kolkii hore ayaa loo fududeyn jiray maadaama uu yahay sargaal sirdoon ah. gaari iyo ilaalana midna looma soo dirin oo garoonka ka soo qaada. taasina waxa ay ku beertay shaki kale iyo dareen ah in lagu raad joogay. Oleg ayaa ku qasbanaaday in taksi aqalkiisa geeya uu kiraysto. intuu taksiga saarnaa waxa uu iska eegayay in la daba socdo ama ay ku daba jiraan gawaarida KGB uu sida aadka u yaqaanay. dhanka guriga Oleg waxaa soo gaaray sirdoonkii Soviyetka oo markaani raba inay dabin u dhigaan ninka hay'adooda ka tirsanaa. waxaa bilaabatay howlgalkii lagu soo afjari lahaa Mr. Kordovsky. waxay qaadatay wax ka yar qadar daqiiqada ah si loo bedelo moolada sakatuurada irida hore ee aqalka laga soo galo goobta uu deganaa Oleg, taasoo ahayd dabaqa 8aad ee dhismaha 103 Leninski Prospect oo ah dabaq ku yaala magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka, kaasoo ay degnaayeen basaasyadii Midowgii Soviyetka ee KGB iyo qoysaskooda. halka 2 nin oo xiran gacmo-gelis iyo dharka ka ilaaliya in raadkooda guriga ay baarayaan laga helo ay shaqo ka wadaan hoygii Oleg. waxayna gidaarada gadaashooda iyo teleefanada dhexdiisa geliyeen codbaahiye iyo qalabka codka duuba. sidoo kale waxay qolka jiifka, jikada, fadhiga iyo leerarkii gurigaba dhex geliyeen kaamirooyin yaryar oo muuqaalada duuba. marka ay howshii dhammeeyeen saacad kadib, ma jirin meel aqalka ka tirsan oo aysan KGB wax ka maqlayn ama aysan ka arkayn. saraakiishan ka socotay sirdoonkii Midowgii Soviet waxay xirteen dharka ka ilaaliya shucaaca nuclearka, waxayna guda galeen inay shucaaca nuclear ku buufiyaan
kabaha iyo dharka guriga yiila. Shucaaca nuclear-ka iyo alaabtani lagu buufiyey ma aha mid wax dilaysa ama wax sumaynaysa, waa mid khafiif ah. hase ahaatee waxa ay sheegaysaa meel walba uu tago qofkii alaabtaasi xirta ama qaata. raggii shaqada ka hayay aqalka Oleg waa ay ka soo baxeen iyaga oo si caadi ah oo aan laga shakinayn guriga u xiray. daqiiqado kadib waxaa gurigii yimid ninkii daminka lala maaganaa. markii uu gurigiisa soo gaaray oo ay sakatuuradii koowaad iyo labaadba furmeen, hase yeeshee tii saddexaadna ay si kama u xireen saraakiishii aqalka hawsha ka waday, ayaa u furmi weysay Oleg. arrimahaasi oo isbiirsaday, basaaskii wax basaasi jiray waxa uu xaqiiqsantay in la ogaaday inuu MI6 la shaqeeyo. Oleg waxaa la soo diristay cabsi ba'an, taasoo qalajisay dareemayaashiisa uu wax ku kala sooci lahaa. wuxuu yaqiinsaday in ilbiriqsi waliba la shirqoolayo uusanna ka badbaadi doonin daminka loo dhigay. laba wajiilo Oleg sanado badan ayuu la shaqaynayay sirdoonkii MI6 ee Ingiriiska, iyagoo u bixiyey naanaysta ah Nocton, kaasi oo ahaa baaq sir ah oo ay isla ogaayeen basaasiyiintii MI6 iyo Oleg. Nocton wuxuu noqday basaaskii ugu qiimaha badnaa dunida xilligii dagaalkii qaboobaa ee uu socday. macluumaadka qaaliga ah ee Nocton uu siin jiray sirdoonka Ingiriiska waxay jiho kale u weecisay in reer galbeedku ay wax ka beddelaan qaabka uu u wajahayo Midoogii Sofiyeed. reer galbeedka ayaa kaga gacan sareeyay Sofiyeedka maadaama ay sirtooda helayeen inta aysan ficil samayn. Nocton wuxuu sirdoonka Ingiriiska iyo kuwa reer galbeedkaba u kala diray shabakadii sirdoonka Sofiyeedka iyo sida ay u shaqeeyaan. wuxuu kaloo reer galbeedka u muujiyey qaab fikirka Sofiyeedka, gaar ahaan xilliyadii gantaalada nuclear-ka la isku soo jeediyey. xogta uu gudbinayeyna oo ka soo bilaabatay qalbiyada Kremlin-ka wuxuu toos u socday miisaskii madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Ronald Reagan iyo ra'iisul wasaarihii Ingiriiska Margaret Thatcher. midna ma ogeyn qofka dhabta ah ee uu Nocton yahay. waxaa keliya loo sheegi jiray xogaha laga soo helo Midoogii Sofiyeed. Oleg xaaskiisa xitaa kama aysan warhayn in ninkeedu uu yahay laba wajiilo basaas u ah Ingiriiska. yeelkeeda Nocton, maadaama uu yahay sargaal sare oo sirdoonka Sofiyeedka ka tirsan, wuxuu heli jiray xogo sir ah oo aan weli madaxweynaha Sofiyeedka la ogeysiin. haddaba saraakiisha MI6 waxay si halhaleela u bilaabeen in ay dib u eegaan qorshaha badbaadinta Nocton haddii Moscow ay xirto ama qorsheynayso in ay shirqoosho. qorshahan waxaa loogu magac daray Bimliko, waxaana la dejiyey 7 sannadood ka hor inta uusan Nocton go'aansan inuu Moscow ku laabto. waxaa xusid mudan sirdoonkii Ingiriiska ee MI6 weligoodba qof kama soo furan Ruushka, iska badaa in ay basaas laba wajiilo ah soo furtaan. tani waxay ahayd isku daygoodii ugu horeeyey. basaaskii la basaasay wuxuu go'aansaday inuu bixiyo baaqii sirta ahaa ee kala dhexeeyay MI6, kaasi oo ahaa Bimliko. baaqani ma uusan ahayn hadal caadi ah oo labada dhinacba ay ku kala xiriirayaan, balse baaqa ayaa ah in Nocton lagu arko waddo Moscow ku taalla oo la isla ogaa, ama inuu sito bac cuntada lagu qaato oo ah nuuc ay la isla ogaayeen, ama xilliga inuu yahay 3 galabnimo. haddii 3daas calaamadood Nocton lagu arko, MI6 ayaa bilaawayda howlgalkeedii badbaadinta. Master Gordovsky ayaa baaqi diray. saraakiisha MI6 ee Moscow waxay qaateen gaari ay saarnaayeen haweeney sidata cunug yar oo xafaayad qaba, kuwaasoo ka mid ahaa basaasiinta Ingiriiska. Nocton ayay u yimaadeen goor habeenkii ah. waxay ku duduubeen maro gaashaan ah oo aan raajada iyo kaamirooyinka arki karin waxa gudaha ku jira, waxayna ku rideen gaariga gadaashiisa, waxayna isla habeenkii ula soo baxsadeen dhanka xuduudda Finland. markay xuduudda soo gaareen, kolkaana la istaajiyey, ayaa baaritaanka loogu dhaqaaqay gaarigii ay saarnaayeen. marka ay askartii raajadii iyo kaamirooyinkii ay arki waayeen waxa qarsoon ee gaariga ku jira, ayay waxay ku fasaxeen eeyo loo tababaray urinta walxaha daahsoon. labadii basaas ee la soo baxsaday Oleg marka ay eeyadii arkeen waxaa ku baryay waagii, waxayna ku fekereen in la soo saari doono Nocton, iyaguna aysan badbaadi doonin. si kastaba ha noqotee, basaasada haweeneyda ah ayaa si dhaqso ah u fikirtay xeelad ay eeyadu ku maran habaabisan ah in ay wax uriyaan ayay dejisay.
waxayna soo qaadatay nuunaheedii oo xafaayadiisa ay saxaro leedahay, waxayna nuunaha dul saartay meeshii Nocton lagu qariyey, halkaasi oo ay dhigtay xafaayadii saxarada ka buuxday, nuunihiina ku nadiifisay isla goobtaasi ku aadanayd halka uu Oleg ku jiro. Eeyadii baaritaanada loogu talagalay marka ay soo gaareen halka Nocton lagu qariyey ayay xamili waayeen urta goobtaasi ka soo bixaysa, sankooda ayayna la boodeen iyaga oo goobta dib ugu cararay. Waqti yar kadib ayaa la sii daayay oo loo fasaxay inay sii socdaan, dabadeedna waxay u soo tallaabeen dhanka Finland iyaga oo halkaasi diyaarad ka soo qaaday una soo kictimay dhanka London. Oleg waxaa la dejiyey aqal sir ah oo aad loo ilaaliyo, ilaa iminkana waxa uu ku nool yahay dalka Ingiriiska. waad ku mahadsantahay daawashadaada. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.